لنعانو التسمد فرنتو أمهان إسلام كوبا فرحتك وعيدي وما لنعانو التسمد فرنتو أمهان إسلام كوبا فرحتك وعيدي كل عام وأنتم بالخير. عيد مبارك. ملك سعد نقد عورة سان وتلفزيون كعالمي جاي بولشة تي في أو إذن لا نقول عيد مبارك. وعن هذا كوسو كنا هي مالي فرحتها إيه قبل كجبلي وعرابة أيام كوسو كنا هي ويكون عيد أيام عرورتي يدل يردي وضياشي يوري السياسيين تي وحنا لما أنتم بلايهن عيد مبارك. عيد العافية. هيه فرحتها عيد المحل هاي. عيد ونكس. يا سلامة. ويا يا باي. يوم الضرب. السلام عليكم مقعاقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقة واحد إلى إدريس يوسف علي. إدريس واحد لقي واحد ببولشة تي في واحد لقي بسنة ساعدة إن. waxaan salaamayaa ho family-gayga anoo si kala qaadqaadan hooyaday macaan iyo aabbahay macaan eedooyinka ee habareerahay abtiyaasha muslimiinta oo dhan meel kasta jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak farxadda ciida ayaan la qaybsanayaa bulshadayda muslimiinta ah dhammaan daafaha dunida ku kala nool bulsha TV-na aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijka la qaybso farxadda ciida dadkaaga aad baan idinku soo dhaweynayaa aad baan idinku hambalyeynaya يا سلامتي. waxaan salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa waalidkay hooyaday qaali iyaan salaamayaa waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa ilmaadeeraday waxaan salaamayaa ehliyadayda waxaan salaamayaa ardayda shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee isku baahanahay waxa kale oo salaamayaa magarasa ardayda aan isku waxbarashada ku wada jiro new generation waxa kale oo salaamayaa dhammaan ummadda reer Gabiley iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasto ay dunida ka joogaan baa salaamaya عيد مبارك. عيد العافية. اوكي برنامج كنا عيد بولشة تي في كسو دو وانكو دوي يا سلامة صبرك. هو يدي يا أباي يا ولالاهي يا برشو تلفزيون كبرشو. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى إسلام كردمانتود ميل كستي جوغان bulshooyin reer Soomaaliland bulshooyin reer Gabiley bulshooyin caasimada gobolka cagaaran ee Gabiley dhammaan inta halkan ku ciidaysa waalid iyo caruurba waxaan leeyahay ciid mubaarak ilahay nabad qab iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo waxaan leenahay waalidiinta gaar ahaan odayaasha oo maalintii caruurta maanta aynu caruuraha ciidsiin hadoo leedmo ciid mubaarak meel kasta oo aad joogtaan oo naga daawanaysan hadda waxaan ku suganahay garoonka magaalada Gabiley waa halkii lagu ogeeyay salaatu ciid al-fitrida ee xaafadda New Gabiley waxaana ay gula sugan magacaaga magacaygu waa Najax Abdi Cumar waxaan aad iyo aad maanta ugu mahad celinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala na soo gaarsiiyay bish Ramadaanta waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan ciid mubaarak wa antum bil khair dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan Ilaahay baana mahad oo dhan u sugnaatay bish barakeysnayd noo soo gaarsiiyay nagu sugay maantana ciidii nagu sugay alxamdulillah waan leenahay mar kasta ya salaam sabarka maanta xaq waxaan ka salaamayaa horta waalidiinteeda ugu horeysa oo leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa family-gayga oo dhan mar saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan jiif aqal hay salaam alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan halkan waxaan ugu direynaa ummadda muslimiinta dhammaantood waxaan leenahay kullu caam wa antum bil khayr ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan shacbiga xaafadda New Gabiley waxaan leenahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بالخير دمانتيد وحنا لكن كسرامنا مدحونا جمهورية الصومال ku xigeenkiisa golayaasha qaranka waxaan maanta aad aan uga hadlaynayo taabashay nagu leh gobolka Sool arrimaha ka taagan waxaan leenahay walaalayaal Soomaaliland xuduudaheedu waa xuduudii Ingiriisku dhigay xuduudo maanta la kala gooyn karo maaha maanta dadka reserve degani waa dad reer Soomaaliland xaggan Itoobiya bay ka yihiin ninbay beertiisii kala jartay maxaa dhahdaa xuduuduhu waxaan leenahay walaal istijiya waxaan halkan ka salaamaynaa oon mahadnaq iyo maxaa dhahdaa ducaa iyo tahniyad buu dirinaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee har iyo habeen heeganka u taagan dalkooda si ay u difaaci lahaayeen waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha istaago ciid mubaarak waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa kaloo aan ku darayaa colaadda kulley ilaahay unba xagga ilaahay unba ka timaadaa sabab ilaahay unbana ku socotaa
ciddii la doonaha lagu aaneeyo oo ha loo tiriyo laakiin waa wax ilaahay ugu talagalay inay dhacdo sidii ilaahay ugu talagalay bayna u dhacday ilaahayna haynaga qaboojiyo ilaahayna boggeena burcada isku mariyo kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda reer Soomaaliland dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa inagu gaarsiiyo ayaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad qab ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa madarkaan helay ee dhammaan wada saameeyo ummadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Itoobiya alxamdulillah baan leenahay abaar caam barwaaqo caam dhacday taasi waa taa kale laba qodob baan ka yara hadlayaa oo kale qodobka laascaanood ee maanta taagan waxaan leenahay walaalayaal reer laascaanoodow annagaa colaad soo aragnay annagaa dhib soo aragnay annagaa hore u qaxnay inta dagaalka ku dhimanaysa waxaa ka badnaan doonta inta qaxootinimada ku dhimata hadday yar tahay hadday biyo xumaysato hadday gaashowda iyo daranyo u dhimato waxyaa intii jooniska naga laysayba ciidaa ka fara badnayd oo intii dagaalka ku dhimatay intaasaa ka badnayd taasi midaasaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay nabadda qaata halkanna inta aan nool lahay waan isaga taagnaanaynaa un soomaalidu waxa maahmaahwana u ah inta dhimatay kolkay intii doontaa dhimato inta nool aan u talino maanta colaadda hala joojiyo inta noolaha loo taliyo laakiin kolka la daalo cid waliba way odhan doontaa haddaba intaan aad laynooga sii dhiman imikaba waa la dhintee waxaan leenahay colaadda joojiya nabadda qaata bisha barakaysan ee ciidana wax ku qaata waxa weeye dadka oodii ab ka dhow baa layidhi abkaad sheegaysaan oodda ka dhow oodda ayaa ka dhow taasi saasaan leeyahay ta kale dadka reer Gabiley ee maanta taagan ciidda waxaan iyagana leeyahay war waxa la joogaa xilligii wax beerashada ayaa la joogaa war waxa la beerto oo la soo saaro dibadda waxba wixii nooga yimaado faa'iido ma leh waa waxa dhacay iyo wax nooc kasta leh iyo wax sanadku la beeray aan garanayn war waxa cusub ee xidaha walaana la beerto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dareenkaaga nagula wadaag Bulsha TV alxamdulilah waan salaamayaa Bulsha TV iyo cabdisalaan aad baan ku salaamayaa ummadda islaamka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ilaahay bisheeda bashbash iyo barwaaqo iyo baraaraha inagu gaarsiiyo ummadeena islaamkaana inta cudurana Allah caafiyo inta caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo ilaahay barwaaqada iyo bisha Ramadaan acmaasha aan soo sameeynay ilaahay ay naga aqbalo waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidamada qaranka ee kala duwan iyo hay'adaha amniga ummadda islaamkaana waan salaamayaa dhammaanteed meel kasto aan joogno kullu caam wa antum bikhayr baan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazakallahu mahadsantahay cabdisalaan Bulsha TV waan soo dhaweynayaa ciid mubaarak kullu caam ayaan leeyahay bulshooyinta guud ahaan gobolka Gabiley iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan bulshada caalamka meel kasta ay joogaan waxaan ilaahay ugu baryayaa muslimiinta inuu ilaahay waxa weeyaan khayrka u libilaabo inuu ilaahay ilaaliyo inuu ilaahay waxa weeyaan cadawga ka ilaaliyo waxaan aad iyo aad mataqaan u hambaliyaynayaa mar labaad mar saddexaad ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan hambaliyo uga dirayo madaxda qaranka dhammaantood oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan kaloon hambaliyo iyo bogaad u dirayaa oo ciid mubaarak leeyahay waxaan golaha deegaanka ugu horeeyo maayirku xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogeyaha waxaan leeyahay ilaahay bisheeda khayr nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay amniga iyo isku duubnida hal ilaaliyo ilaahayna waxa weeye acmaashii soonka iyo salaada haynaga kuwi laga aqbalo ilaahay naga yeelo waxa ku sugan hadda garoonka waxa weeyaan xaafadda New Gabiley aad iyo aad baa maasantay cabsalaad waxa kale halkan aan ilaawoon hambaliyo u dirayaa waalidkay dhammaan iyo waxa weeyaan familkayga reer Ismaaciil Cabdi Xaaji Aadan reer Ismaaciil Geedi oo ugu horeeya walaalkay Axmed Ismaaciil Rashiid Ismaaciil Foosiye Ismaaciil Xasan Ismaaciil Fuaad Ismaaciil محمد إسماعيل مختار إسماعيل فؤاد إسماعيل محمد إسماعيل Bulsha TV telefishinka caalamiga Bulsha TV dhammaan howlwadeenadiisa aad baan u salaamayaa waxaan kaloon halkan ambaliyada ciid la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimka meel kasta ay joogto la kullu caam antum bikhayr gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu ambaliyaynayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda waxa weeye reer Soomaaliland oo leeyahay dhammaan farxad ku ciida aad buu runtii shucuur fara badan oo dareen fara badan oo farxada iga muuqda waxaan leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo badhaadha ilaahay nagu gaarsiiyo colaada ka ogan gobolka Sool
waxa weeye nimanka garaadadu ay bilaabeen ilaahay naga qaboojiyo baan leeyahay caalamiga bulsha TV ee gobolka Gabiley ee uu garwadeenka ka yahay Cabsalaan Maxamed Bade Bulxan aad iyo aad baan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa dareenkaygu aad iyo aad buu sareeyaa waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr ilaahay ciideeda haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo maaragtay ilaahayna haynaga yeelo kuwii soonkii salaadii sadaqadii iyo acmaashii kala duwanaaye taajidku ku jiray soo sameeyay kuwa laga aqbala Allah haynaga yeelo farxadda ciid la qaybsan bulsha TV barnaamijkeenan ku soo dhaw aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku dhowahay ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ilaahay caafimaad qab iyo barwaaqo haynagu kula siiyo tan iyo teeda dambe waxaan la rajaynayaa dadka xanuunsanayna ilaahay caafiyo ciidaad si gooni u salaamaysaa ma jirto haa waxaan aad u salaamayaa dhammaan cidda muuqayga iyo magacayga garanaysa ugu horeeya waalidkayga iyo heeliyada oo dhan dhammaystiran ayaan aad u salaamaya halkan ciid mubaarak leh kaga faa'iideyso bulsha TV farxadda ciidda iyo garoonka gudihiisii waan ku dhowahay gaar ahaan aad baan u salaamayaa bulsha TV waxaan leeyahay halkan ciid mubaarak kulli caam wa antum bil khayr dhammaan dadweynaha muslimiinta meel kasta dunida ka joogaan dacladooda gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bil khayr wa assalaamu calaykum yaa salaamasa dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa asxaabtayda waalidiintay dhammaan familigeyga sida kala duwan waan salaamayaa bulsha TV aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh libaanka waa caruurtiisii ciidsiinaya maanta ayaa halkan kula kulannay waxaan leenahay bulsha TV la ciid bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa bulsha TV waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-a'maal waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay ciideeda haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan maanta ku ciidanaa ceelaabe xarunta caruurta oo ceelaabo la yiraahdo waxaan saaranahay doontii ceelaabe ciid mubaarak ciid mubaarak okay yaa salaamasa salaamay bulshada iyo waalidkaagii masalan magacaalkii hooyada walaalada waxay oo dhanba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Miira halka waxaan ka salaamayaa ummadda daawana soo dhayo hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan cidii daawana soo dhaw waxaan leeyahay munaasabada ciidawga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ciid mubaarak cidda salaamasa hooyada iyo xaafidina cidda salaamasa hooyaday iyo aabahay cid walba salaamay wa antum bi khayr taqabbal Allahu minna wa minkum min a'maali saalihan marka hore waxaan salaamayaa TV-ga bulsho iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaanba waxaan leeyahay ilaahay naga aqbalo ciida acmaashii iyo soonkii iyo salaadii waxaan halkan uga ducaynayaa dhammaan ummadda islaamiinka oo leeyahay ilaahay acmaasha ay naga aqbalo kuwii ilaahay uu jannooyinkiisa ku fadl yeelanahay naga yeelo wadankana ilaahay amniga iyo barwaaqada ah u barakeeyo waa maalin ciida ilaahay shaqaqooyinka yare bariga ka jirana gaar ahaan gobolka Sool ka jirana Allah ay naga soo afjaro bashbashiyo barwaaqo ilaahay ummadda wixii dhinteen Allah u naxariisto wixii nool Allah ha u siyaadiyo wixii caafimaad qaba Allah u siyaadiyo wixii xanuunsan Allah shaafiyo barwaaqo bashbashiyo soo ognaashaas ciida sanadkiisa inuu ilaahay gaarsiiyo maasha walaalahay eeladeedii anoo shaqaale ceelaba oo dhul Sheekh Ismaaciil oo waaya waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan aqoon waxaan ka salaamayaa oo kale walaaladay eeladeedii ciyaalkaygii dhammaan waan wada salaamayaa yaa salaamaysaa hooyi aabo habaday abtigay eedooyinkay dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid alcaafiya ciid mubaarak yaa salaamaysaa hooyooyinkay aabahay eedooyinkay awowayaashay abtiyaashay dhammaan muslimiinta oo dhan waan ku dhowahay bulsha TV Cabdisalaan waxaan leeyahay magacaygu waa Xaamid Axmed Daahir koobtuna waxa weeye waxaan ku ciidanaa ciid mubaarak waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtayda iyo ehelkayga iyo dhammaan familigan salaamayaa hooyaday iyo walaalahay iyo dhammaan farxadda ciidda kula ciid bulsha TV yaa salaamaysaa halkan horta marka horeysa waan ku dhowahay marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ku yiidayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ayaan leeyahay dhammaan ciyaalkana waxaan leeyahay waa maalinkiida farxa oo qosla waa maalintii niye hooyaday ciid mubaarak baan leeyahay hooyaday Allah idaaye
marka ku xigta dhammaan faamilkayga walaaladay iyo ummadda muslimiinta iyo madaxweynaha muuse biixi cabdi TV هيا هبا كسر برشة تي في يا سلام سلام هل كانوا مرنا سافر حد عيد xagga waxaan ka salaamayaa family-gayga oo dhan aabbahay hooyaday iyo intii dheerba family-gayga waxaan leeyahay farxad ku ciida waxaan salaamayaa bulsha TV yani iyo dhammaan muslimiinta meel kasta joogto dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadka muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan baan leeyahay waxa alla wixii magacay garanay wixii muuqay garanayba gaar ahaan madreer Soomaaliland ma salaamaya siiba gaar ahaan waxa salaamay hooyadii Nibca Xasan Jaamac يا حاجتي هذا مرخ عبد الله عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بان لها عيد وناكسن دمان مدة مسلمين تاع ملك استوي شوغان gaarahaan waxaan salaamayaa waalidiintayda hooyada iyo aabahay dhammaan ehelkayga intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa waxaan salaamayaa kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair إن شاء الله بسم الله الكريم حرجينا يدين إنه نقول جالسين بشبشية برواقية بلارة السلام عليكم عيد وناكسن هو يري أباي يا مدحوينه مصبحي سلام يا هو يري أباي يا دمان ومد مسلمك وحن الله يا عروته عيد مبارك هو يري يا أباي يا سلام بسم الله مركب إلهي بمعلى وأكون واي برنامج عيدة إن شاء الله واحد رجينا هنا صفي عانوا كم يركضون مسلمين تدمانو قاعدين بش يبر واقعي لا نوجد سنة كسنة كيسة واحد حان كسلام يعني أنت موقعي مقعي جرانسا دمان واحد يقول لي مسلمين تا عيد مبارك مبارك إلهي عيدا بش يبر واقعي نوجد سيو وحن دمان سلام يا أمة الإسلام كاملوا لي شوكتو وحن لا عيد مبارك وحن سلام يا جرهان أمة الهير سومالان وحن لا عيد مبارك سلام يا مدح القرن كدمان تيد ciidamada qaranka ee jiidoora jooga ee halgamayaasha ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ilaahay bashbashi baraare iyo barwaaqay nagu gaarsiiyo iyo dhibaatada iyo colaadaas ay naga joogsata oo wadankeena nabad noo noqdo ciid mubaarak waxa salaamaya hooyaday aabahay iyo ummadda islaamka iyo ciid mubaarak ciidanka qaranka salaamay leeyahay iyo hooyaday aabahay iyo ummadda islaamka ku xanuunsanayna ilaahay caafiya adeerada yaa uugay عيد مبارك dadkoo dhan baan salaamaya ciid mubaarak baan leeyahay ciidamada qaranka Soomaaliland ma salaamaya magacaaga Liban ayaa salaamta dhamaan macallimiinteeda iyo waalidiinteeda iyo dadka muslimiinta dadka Soomaaliland degan marka hore magacaygu waa Mustafa Taqaatir maanta waxaan halkan u imitay saan u salaamo dhammaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair kullu caam wa antum bilkhayr waxaan halkan ka sii wadnaa wali barnaamijkeennii ciid mubaarak ee bulshada TV hay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair halkan waxaan maanta waa maalin farxad leh ummadda muslimiinta dhammaanteed waxaan uga tahniyadeynaa ciid al-fitrida oo maanta ilaahay nagu simay acmaashii khayrka badnayd ee aynu soo qabanay bishii Ramadaan ilaahay naga aqbalo ummadda islaamkuna meel kasta ay joogto waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka aqbalo waxaanu ku salaamaynaa ummadda islaamka waxay salaanta islaamka taqabbal Allahu minna wa minkum saalihul a'maal markaan ugu dhawahay telefishinka caalamiga ee bulsha TV waxaan leeyahay ummadda islaamka dhammaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ilaahay ciideeda iyo ciida kale badan bana waqo inuu gaarsiiyo ilaahay khayrka ciidahayna waafajiyo ilaahay nimcada iyo barwaaqada ilaahay noo shubahay noo siyaadiyo dhammaan ciid mubaarak baan leeyahay assalaamu calaykum xildhibaan ciid mubaarak ku soo dhawow farxadda ciidda iyo bulsha TV waan dhawaay waan maasan tahay adiga saxafi iyo bulsha TV iyo dhammaan saxaafadda waan salaamayaa waxaan kan hambaliyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ku ciida farxad iyo wanaag bisha barakaysan ay noo dhamaatay iyo maalinka farxadda ciidaynu joogno waxaan leenahay ilaahay bisheeda hayna u gaadhsiiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo hayna u gaadhsiiyo ilaahay naga dhigo kuwii acmaashii wanaagsanayd ay soo sameeyeen inuu ilaahay ka aqbalo oo ugu dambi dhaafo xasanaad ku helaan ilaahay naga dhigo waxaan leenahay bulshada Soomaaliland ilaahay sanadkan sanadkiisa ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay ha siiyo amni iyo iimaan ilaahay barwaaqada ta dhulka iyo tacirkaba ilaahay ay noo furo waxaan fariinta gaarka aan ka diray waxa weeye waxaanu galnay xilli roobaadka baynu galnay waxaa lagu taliyaa gobolka soo saarka
wax soo saarkana waynu halkaynu ka taagannahay waynu sognahay marka waxaan leeyahay ilaahay mar hadduu raxmadiisii noo lisay dhulka iska bannaan aan waxba ka baxayn waa inaanu beeraha u jeesanaa oo aynu si cilmiyeysan u soo saarnaa si aynu uga maaranno waxyaalaha inooga imanaya dibadda inooga imanaya daawadayaal barnaamijkeenna halkan ayaynu ku soo gebagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaanu ku leenahay waa aniga oo cabdisalaan maxamed badaah oo idinla socodsiinayey iyo welibana duubistii isaaq cabdilaahi maxamed